بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan doonayaa inaan halkan uga soo jeediyo baaq ama waano laba qodob mid waalidka ku socota iyo mid ardayga ku socda. ta ardayga ku horeynaya maadaama ay dhacday xanuunkan dunida aafeeyay isku socodkii adduunyada iyo waxbarashooyinkiiba kala xidhay inagu bahda waxbarashada inagoo asana dugsiyeedkii inaga soo dhaxgalay leena fasaxay waxa iskuulka Daarul Culuum uu bilaabay inuu hab online ku bixiyo waxbarashada. habka online ka waxa loo baahan yahay in dadaal fara badan ardaydu muujiyaan. dadaalka fara badan ee ardayda laga doonayaa waxa weeyaan inuu qofku naftiisa waxa loo soo diray sideeda macallimiinta u dhageysto wixii exercise ee la soo dirayna sideeda u soo celiyo si aanay tacliintii aanu gaabin nooga gelin. waalidiintana waxaan kula dardaarmayaa arday fara badan oo halkan la joogi jiray baanu tacliinta isku haysan jirnay war soo jeesta maanta waa lacala iyagoo qof walba gurigiisii joogo gurigoodii. waxaan waalidiinta kula dardaarmayaa dadaalka iskuulku hayo mid yar maaha iyo ka macallimiintu waxaynu doonaynaa ardaydii iskuulkan ka xaadiraysay ee tacliin doonka ahayd inaanay tacliintoodii gaab tacliimeed aanu iman. sanad dugsiyeedkana waxaanu ugu dhammaynaynaa intii u harsanayd inaanu habka online ka ugu dhammayno. kii sagsaagkeena ee ka soo bixi waay waalidow halkii macallinkaad ku jirta macallinku labuuha marna ardaygiisii isaga waxa weey controlayay ka warka inuu yar jeestay maantana ma arkayo qofka la doonaya ardayga inuu ka daba shaqeeyo waa adiga. waxaan ka codsanaynaa inaad ardayga tacliinta aanu soo bixinayno aad ku daba geshid oo aad ogaatid ardaygaasi inuu waxa weeye tacliintiisii qortay iyo inaanu qorin.